kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka warbaahinta hadalheynta wararka qodobada aad ku maqli doontaanna waxa kamid ah wufuud isugu jira mucaarid iyo muxaafid oo gurada isku daraya magaalada Garowe iyo tilaabooyin la filayo inuu qaado madaxweynaha maamulkaasi Puntland Baritano lagu bilaabay madaxda ka Qeybgaleyso Shirka magaalada Garowe iyo natiijooyin hordhac oo soo baxaya qorqorka galmudug oo shuruud adag ku xiray fulinta qorshe ay doonayaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya Haweyney laheyd oo lagu kufsaday waqooyiga gobolka Galgaduud kadibna la gowracay dagaal culus oo aan waxba la isku reeban oo ka dhacay gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya qaar kamid ah xubnaha gobolada koonfureed ugu jira dawladda federaalka oo lagu eedeeyay inay indhalaan ku taageeraan farmaajaha filla Soomaaliya maamulka rugta ganacsiga Soomaaliya oo la kala diray eedeymo dul hoganaya maamulkaasi akhbaaraadka dibadda aad maqli doontaan waxa kamid ah Suudaan oo sheegtay inay dib u soo ceshatay gacan ku haynta deegaana ay la wareegeen ciidamada Itoobiya iyo dad aad u fara badan oo lagu laayay dagaal ka soconaya gudaha Itoobiya intaasi waxay ahaayeen qaar kamid ah qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga waa 28ka bisha 12aad ee sanada 2020 iminkana qodobadaas oo faahfaahsan wufuud isugu jira mucaarid iyo muxaafid ayaa ku sii qulqulaya magaalada Garowe waxaana la filayaa maalmaha soo socda in halkaasi gorada isku daraan iyadoo la sheegay tallaabooyin si hordhac loo ogaaday oo qaadi karo madaxweynaha maamulka Puntland Siciidani wufuudan way kamid yihiin qaar kamid ah midowga musharaxiinta oo hadda ku sii qulqulaya magaalada Garowe iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay shirar uga qayb galaan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxa aad loo adkeeyay ammaanka magaaladaasi waxaana lagu arkayaa inta badan wadooyinka muhiimka ah ee Garowe ciidamo aad u fara badan oo qaybtood ay si gaar ah u ilaalinayaan madaxda qaarkood sida hogaamiyaha maamulka Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe ra'iisul wasaare ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya oo ah afmaal inta badan weerar afka ku qaada musharaxiinta mucaaradka iyo guud ahaanba dadka ka ra'yiga duwan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isaguna gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxa sidoo kale magaaladaasi gaaray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo isaguna afmaal aad hadda isha loogu hayo tilaabooyinka uu qaadi karo waxaana maalmaha soo socda mas'uuliyiintan kala duwan ay ka qayb gali doonaan shirar ka dhacaya magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxa sidoo kale halkaasi shirarka kaga qayb galaya gudoomiyaha aqalka sare ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo labadoodu aan isku meel ka taagnayn arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo waliba doorashooyinka iyadoo Cabdi Xaashi loo arkay xilligan inuu yahay mucaaridka ugu weyn ee ku dhex jira dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana diidan tallaabooyinka inta badan ay doonayso villa Soomaaliya inay qaado balse Mursal ayaa loo arkaa inuu yahay gacanta midig ee madaxda villa Soomaaliya waxaase siyaasadiisa fahansan oo la aaminsan yahay inay gurada isdari doonaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre oo isaga dhowr jeer inta ay dawladda ka wada tirsanaayeen ay gurada isla galeen sida xilliyo muushinno la abaabuliyay isla markaana Xasan Cali Khayre uu weerar toos ah ku qaaday hoyga uu degan yahay gudoomiyaha baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaana sidoo kale tilaabo meesha looga saarayay xukuumaddiisii qaaday Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo muddo daqiiqado kooban ah meesha kaga saaray Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa waxayse markaan si toos ah gorada isugu dari doonaan magaalada Garowe waxaana la aaminsan yahay in daniga hogaamiye maamulka Puntland uu u janjeero dhanka mucaaradka walow waayihii dambe uusan qaadayn tilaabooyin rasmi ah oo ku aadan diidmada tallaabooyinka dawladda federaalka Soomaaliya dhanka kalena magaaladaasi Garowe xarunta maamulka Puntland waxa ka soconaya Baritano lagu sameynayo madaxda ka qayb galaya shirka magaalada Garowe waxaana halkaasi ka soconaya baaritaanadii ugu dambeeyay iyadoo guud ahaanba mas'uuliyiinta ka qayb galaya shirarkaasi ay wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland marsiinayso Baritano waxaana natiijooyin hordhaca ee soo baxaya sheegayaan in qaar kamid ah mas'uuliyiinta ku sugan Garowe aysan maalmaha soo socda ka qayb gali doonin shirarka la filayo in halkaasi ka dhacaan maadaama qayb ahaan ay saameyn ku yeesheen baaritaanada la sameynayo walow si rasmi ah loo carabaabin magacyada mas'uuliyiinta halkaasi lagu wargeliyay inaysan kaga qayb galin shirarka waxaase maalmaha soo socda isha lagu hayn doona mas'uuliyiinta shirarkaasi ka qayb galaysa iyo kuwa Garowe ku sugan ee laga dhex waayay doono masriixiyada dooda ee magaalada Garowe qorqorka hogaamiye maamulka Galmudug ayaa shuruud adag ku xiray fulinta
qorshe ay doonayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Maalinimadii Sabtida ahayd ee 26 bishan ayaa loo ballansanaa in xarumaha dowlad goboleedyada dalka ay ka bilaabato diiwaangelinta musharaxiinta golaha aqalka sare oo ku eeg 29 bishan sida ku cad jadwalka dhawaan ay soo saareen guddiga ay diidan yihiin qaar ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee u tartamaya doorashada 2020-2021. wararka laga helayo hanaanka ilaa hadda wax u socdaan doorashooyinka dalka ayaa sheegaya in guddigan lagu muransan yahay ay hadda wajahayaan caqabado aad u fara badan maadaama guud ahaanba jadwalka ay soo saareen uu yahay mid aan qabsoomayn isla markaana waqtigiisu uu soconayo. guddigan ayaa dhawaan warqad ay soo saareen waxay ka codsadeen hoggaanka maamul goboleedyada dalka iyo waliba gudoomiyaasha baarlamaanada maamul goboleedyada dalka inay bilaabaan diiwaangelinta golaha aqalka sare. waxaana ka mid ah maamulada codsiga loo diray hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. waxaase wararku sheegayaan in hogaamiyaha maamulkaasi Galmudug uu shuruud adag hordhigay inuu fuliyo qorshahaasi. warar lagu kalsoonaan karo ayaana sheegaya in madaxweynaha maamulka Galmudug uu ka biyadiiday in maamulkiisu uu hadda gudagalo qabashada iyo waliba doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka. qorqorka Galmudug oo hadda ku sugan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa la sheegay inuu halkaasi kaga qeybgalayo wada hadallo ay yeelanayaan midowga musharaxiinta iyo hogaamiyaasha maamulada oo diiradda lagu saarayo arrimaha doorashooyinka. waxaana halkaasi ku sugan hogaamiyaha maamulka Puntland oo isagu marti gelinaya shirkan kan Jubbaland. waxaana la filayaa in sidoo kale ay gaaraan hogaamiyaasha maamulada Koonfur Galbeed iyo waliba Hirshabeelle. waxaana halkaasi diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. hogaamiyaha maamulka Galmudug ayaa la sheegay in Villa Soomaaliya ay hadda cadaadis ku saarayso in uu ka laabto magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. taas bedelkeedna inta uu kulamo ka bilaabi lahaa magaalada Garowe uu ka bilaabo Dhuusamareeb soo xulista aqalka sare ee ka soo galaya deegaanada maamulka Galmudug. waxaase wararku iyo xogaha la helayo tibaaxayaan in qorqorka Galmudug uu iska diiday dalabka kaga yimid Villa Soomaaliya waxuna ku adkaystay in go'aanadiisa ku salaysan in wax la isla ogolaado ay qayb ka noqonayaan wax walba oo tilaabaha qaadayo. sidoo kalena magaalada Garowe uu kula soo kulmi doono xubnaha diidan hanaanka hadda dowladda federaalka Soomaaliya ay wax u wado. maalmihii dambe hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa kulamo ku yeelanaya magaalada Gaalkacyo waxayna sheegeen inay gaareen heshiisyo ku aadan sidii loo dhameyn lahaa khilaafaadka doorashada ka jira. waxayna sheegeen sidoo kale inay la kulmi doonaan hogaamiyaasha mucaaradka ah isla markaana ay qaadayaan tallaabo walba oo la isugu soo dhaweynayo dhinacyada ku kala irdhoobay arrimaha doorashooyinka dalka. xogo sidoo kale lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu amray in la qabto doorashada dalka iyadoo laga bilaabayo xubnaha aqalka sare isla markaana laga diiwaangelinayo maamulada hadda ay isku dhow yihiin ee Galmudug, Koonfur Galbeed iyo waliba Hirshabeelle. walow hadda dhanka dowladda federaalka Soomaaliya uu fuulayo cadaadis kaga imaanaya dhanka Dhuusamareeb waxay aaminsan yihiin in ay ka bilaabi karaan Jowhar iyo Baydhabo soo xulista aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. taasi oo ka dhigan in dowladda federaalka ay u aragto guul ay ka gaartay dhanka doorashooyinka isla markaana arrimuhu sidaasi ku sii socon karaan. Haweyney uur laheyd ayaa lagu kufsaday waqooyiga gobolka Galgaduud kadibna halkaasi ayaa lagu gowracay. wararka laga helayo magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in duleedka magaaladaasi maanta laga helay Haweyney uur dhowr bilood laheyd oo halkaasi lagu kufsaday kadibna la gowracay. ehelka Haweyneyda ayaa sheegay inay ugu dambeysay galinkii dambe ee shalay isla markaana qoryaha dabka lagu shito ay ka doonatay xaafadooda oo ku taalay duleedka magaalada. waxaana la sheegay xalay in la waayay isla markaana lagu kufsaday meelaha duleedka degmada Caabudwaaq oo lagu magacaabo Xurfada. waxaana meydkeeda saaka soo sheegay dadka deegaanka. waxaana halkaasi tagay ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda federaalka Soomaaliya oo meydkeeda halka ka soo qaaday. waxaana la sheegay in hadda meydkeeda lagu baarayo xarunta dambi baarista ee degmada Caabudwaaq isla markaana ay ku sugan yihiin saraakiil ka tirsan xaruntaasi iyo sidoo kale dhakhaatiir. waxaana la sheegay in ilaa hadda la hayo jirdil ba'an oo loo geystay gabadhaasi kufsi ay xaqiijiyeen dhakhaatiirta iyo waliba sidoo kale gowrac muuqda oo dhanka dhunta isla markaana ay sameeyeen kooxo arxaan laawayaal ah oo ilaa hadda aan la garanayn. ciidamada booliska dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug oo goobta ku sugan isla markaana gacanta ku haya meydka gabadha ayaa sheegay inay qaadayaan tilaabooyin isla markaana ay bilaabeen baaritaano ku aadan cidda dhibtan ka dambeysay. gabadhan ayaa la sheegay in si arxan darro ah loo dilay isla markaana jirkeeda lagu arkay dhaawacyo aad u fara badan si toosana midi loogu bireeyay kadib markii la kufsaday.
gabadha ehelkeeda oo warbaahinta la hadlay ayaa codsaday in maxkamad la hor keeno cidda ka dambeysay dhibaatada gabadhooda soo gaartay iyagoo cadaalad ka dalbaday booliska dawladda federaalka Soomaaliya iyo lamaha ammaanka maamulka Galmudug oo hadda gacanta ku haya meydka gabadha waxaan se la ogeyn tallaabooyinka ay qaadi doonaan lamaha ammaanka Galmudug iyo haddii ay gacanta ku soo dhigi doonaan cidda ka dambeysay falka kufsiga iyo gowraca ee loo geystay haweeneydan uurka lahayd waayihii u dambeeyayna dhibaatooyin tan la mid ah ayaa ku soo badanayay gudaha dalka iyadoo inta badan dhibaatooyin tan la mid ah oo ah dil iyo kufsi la isugu daray gabdho fara badan ay ka dhaceen gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliyana waxay kala dirtay maamulka rugta ganacsiga Soomaaliya iyadoo eedo loo jeediyay maamulkaasi wasaaradda ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kala dirtay maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee xilligan jiray iyadoo la magacaabay maamulku meel gaar ah oo sii wadi doono hawlaha waxaana si cad wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya ay go'aan uga qaadatay xubnaha horay uga tirsanaa maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee xilligan shaqeynayay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku sheegtay sababta tilaabooyinkan loo qaaday xaaladda cakiran ee hadda ay wajahayaan ganacsiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxaana sidoo kale sheegeen in xilligan wax ka dambeeya aysan sii shaqeyn karin maamulkani iyagoo sheegay inay la dageen rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxaa si ku meel gaar ah loo magacaabay gudoomiye iyo laba ku xigeen iyo 30 xubnood oo matalaya ganacsatada Soomaaliyeed waxaana gudoomiye loo doortay Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ka tirsan Hormuud iyadoo gudoomiye ku xigeen loo doortay Cabdi Wali Maxamuud Warsame waxa sidoo kale gudoomiye ku xigeen kale loo doortay Cali Xasan waxayna ka kala tirsan yihiin shirkadaha Samtel iyo waliba Almoha General Trading waxaana 30 xubnood oo kale oo ay ka soo muuqdeen bangiyo caalami ah lagu soo daray rugta ganacsatada Soomaaliyeed dhawaan rugta ganacsatada Soomaaliyeed waxay wajahayeen eedeymo la xiriira inay la shaqeeyaan dagaalyahanada al-shabaab iyadoo lagu eedeeyay mas'uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliyeed in xiriir dhow ay la leeyihiin dagaalyahanada al-shabaab isla markaana dhowr jeer ganacsatada ay aad uga cabteen tallaabooyin dhowr ah oo ay qaadeen dagaalyahanada al-shabaab isla markaana waxay ku eedeeyeen in al-shabaab ay la shaqeeyaan mas'uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga Soomaaliyeed maamulka ku meel gaarka ah ayaa waxa loo qabtay inay muddo 60 cisho ah ku qabtaan doorasho lagu soo doorto maamulka rugta ganacsiga Soomaaliya intaas ay dhageystayaal ku soo